kulanti wanaagsan dawadayaal kuna soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya qodobadan wararkeena ku soo qaadi doona hadii alla uu qadaro waxa kamid ah wararkii ugu dambeeyay xog laga helay Somaliland iyo Itoobiya dib u bilaabayo wada hadaladii heshiiska badda ee horaan ay kala saxiixdeen madaxweynihii hore ee Somaliland Muuse Biixi iyo sidoo kale ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed dowladda federaalka Soomaaliya oo yaaban hadaba waxa la wadaagi doona macluumaadkii ugu dambeeyay xogta safarka dhawaan xirro uu ku tagayo magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya qodobada kale oo wararkeena ku doontaan waxa kamid ah wararkii ugu dambeeyay beesha xawaadlo oo si la yaab kaga hadashay talaabo dowladda federaalka Soomaaliya ee qaaday kadib markii dowladdu ay isku dayday inay dafirto guusha ay ciidanka deegaanka ee macusliyada beesha xawaadlo ay ka gaareen dilka horjooga sare oo nuunala lagu magacaabo kaasi oo dowladda Soomaaliya guushaasi ay siisay diyaaradaha dagaalka ee Mareykanka hadaba waxaan idin soo gudbin doonaa beesha xawaadlo si weyn kaga xumaatay talaabo ay qaaday dowladda dhexe ee Soomaaliya salaamada waxaa la wadaagi doonaa xildhibaan Xaadowlo oo sheegay inuu san rabin kursi dambe oo xildhibaan hal sabab darteed xildhibaankan oo afka furtay si la yaab leh kaga hadlay beesha Abgaal oo isku diyaarinayso markan inay qaado duulaankii ugu weynaa xilli Cali Jeete Cusmaan uu u tagay xubno kamid ah beesha Abgaal oo isku diyaarinayo dagaalka al-shabaab runtan uu sheegay waan idin soo gudbin doonaa iyo ciidamada danab oo qaab la yaab lagu laayay gobolka Shabeellada Hoose xubnihii ugu badnaa oo ka tirsan maleeshiyaadka kooxda argagixisada ee al-shabaab wararkaasi waxay nagu soo kordhayaan daawad doontaan soo dhawaada saaxiibayaal warbaahinta Soomaaliyeed idin soo gudbinayso wararkii ugu dambeeyay arrimaha Soomaaliya caalamka fadlan daawad aad iyo saaxiibnigu cusub nagu soo biir adigoo subscribe saaranay barteen YouTube korkumanaya wararkeena iyo dhacdooyinka xiisaha leh waan goor balkan ku subeen waagagan ku bilaawno wararkeena Somaliland iyo Itoobiya ayaa la soo warinaya in dib ay u bilaabayaan wada hadaladii heshiiska badda madaxweynaha Somaliland mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro ayaa la filayaa inuu dhawaan uu safar rasmi ah uu ku tago magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya halkaasi oo uu kulan kula yeelan doono ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed sida ay ogaatay warbaahinta Somaliland hadaba xogtan uu helno waxay sheegaysaa in kulankaasi diiradda lagu saari doono heshiiska muranka dhaliye ee badda MOU-ga ee la saxiixay 1 Janaayo 2024 balse aan ilaa hadda la dhaqan gelinin ila wareedyo ka tirsan madaxtooyada Somaliland ayaa sheegay in madaxweyne Cirro uu doonayo wada hadal toos ah oo uu la yeesho ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed si ay uga arisadaan heshiiskaasi kaasi oo saxiixay xilligii Muuse Biixi Cabdi ra'iisul wasaaraha waddankaasi Itoobiya hadaba heshiiska MOU-ga oo ay hore u kala saxiixdeen Itoobiya iyo Somaliland waxa uu Itoobiya siinayaa kiro 50 sano oo ah qayb kamid ah xeebaha Somaliland ee ku taala gacanka cadmeed taa oo bedelkeedna ay Itoobiya aqoonsi ay siinayso kaasi oo ah aqoonsi madaxbanaaneed oo ay Somaliland ay siinayso talaabadan ayaa si adag wax uga hortibaaday dowladda federaalka Soomaaliya la'aanta aqoonsi buuxo oo caalami ah madaxweynuhu ma aqbali doono wax ka hooseeya ayaa uu yiri la taliye sare oo ka tirsan xafiiska madaxweyne Cirro waxa uu doonayaa in arrimaha la kala cadeeyo oo uu si toos ah ula hadlo hoggaanka Itoobiya korinta uusan talaabo dambe qaadin ayaa uu hadalkiisa raaciyay hadaba heshiiskan MOU-da oo aan wali dhaqan gelin ayaa noqday udub dhaxaad dadaalada diblomaasiyadeed ee Cirro tan iyo markii uu xafiisku la wareegay bishii hore intii uu ku sugnaa safar rasmi ah uu ku joogay dalka Djibouti madaxweyne Cirro waxa wada hadal ula yeeshay diblomaasiyiin Itoobiyaan ah oo uu hogaaminayay ku-xigeenka safiirka Itoobiya ee Djibouti waxa sidoo kale wada hadaladan qayb ka ahaa wada hadallo oo diiradda lagu saarayay arrimaha amniga gobolka marin biyoodka badda cas xoojinta ganacsiga iyo fursadaha maalgashiga ee labada dhinac hadaba waxa uu madaxweynuhu la falanqeeyay safiirada horumarinta dhaqaalaha gobolka fursadaha maalgashiga fududeynta ganacsiga horumarinta kaabayaasha iyo kordhinta gargaarka bini'aadantinimo ayaa uu yiri Xuseen Aadan Cige afhayeenka madaxtooyada Somaliland war saxaafadeed la soo saaray bishii May hadaba ku-xigeenka safiirka Itoobiya ayaa dhankiisa xaqiijiyay in Itoobiya ay xiiseynayso xoojinta iskaashiga ee la leedahay Somaliland gaar ahaan dhinacyada ganacsiga iyo amniga Itoobiya oo aan lahayn marin badeed ayaa muddo dheer raadinaysay wadooyin kale oo ay bad ay ku hesho si ay u horumariso awoodeeda dhufinta iyo soo dejinta badeecadaha madaxweyne Cirro oo xoojinaya dadaalada diblomaasiyadeed ee caalamiga ayaa sidoo kale toddobaadadii hore waxa uu la kulmay diblomaasiyiin shisheeye oo kulan uu kula qaatay magaalada Nairobi kulankaasi ayaa mar kale waxa ku adkaaday baaqi Somaliland ay ahaa in la helo aqoonsi caalami ah
haddaba ma nihin dad u yimid Nairobi si ay u bariyaan wakiilada caalamka ayaa uu yiri Ciro waxaana uu sheegay ka qaybgalayaasha kulanka ma raadinayno deeq waxaanu halkan u raadinaynaa ama u joognaa inaynu dhisno iskaashi dhab ah oo aynu la yeelano dawlado maalgashadayaal ah iyo hay'ado fahamsan qiimaha ay leedahay faa'iido wadaag ayuu warkiisa ku daray haddaba dadka Somaliland badankood waxa ay wali rajo weyn ka qabaan wada shaqaynta Itoobiya ay horseedi karto aqoonsi caalami ah himilo Somaliland ay ku taamisay tan iyo markii ay ku dhawaaqday goon isku taageeda sanadkii 1991 haddaba arintan dhinaca kale waxa la leeyahay waxay walaac xor leh ku abuureysaa dawladda federaalka Soomaaliya oo la yaaban talaabada cusub ee dhaqdhaqaaqa Ciro uu la soo baxay waa hagaag arrimahan waxay imaanaysaa iyadoo maalin uu ka hor ra'iisul wasaaraha Itoobiya uu ka dhidhiyay doonistooda ku aadan inay bad helaan dhinaca kale tan Cali Jeeto Cusmaan ayaa si la yaab leh u baahiyay war si adag ugu durayo dawladda federaalka Soomaaliya waxaana uu beeninayaa sheegasho ay sameysay dawladda federaalka Soomaaliya ergeyga madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya arrimaha ciidamada difaaca deegaanka ee Maxusliyada Cali Jeeto Cusmaan ayaa beeniyay in dawladda Soomaaliya iyo saaxiibada caalamiga ee duqeyn ay ku dileen horjoogii ugu halista badnaa al-shabaab ee deegaanada Galmudug iyo Hirshabelle Nuur Cabdi Rooble oo nuuna lagu magac dheeraa kaasi oo dawladda Soomaaliya maalnimadii shalay hay'adda ay xaqiijisay geeridiisa haddaba Cali Jeeto ayaa sheegay in ciidamada deegaanka ee gobolka Hiiraan ay ninkaasi ku dileen weerar dhabagal ah oo ka dhacay aaga deegaanka Cilhareeri oo hoostaga degmada Boqorkori sidoo kale Cali Jeeto ayaa nasiib darro ku tilmaamay in dawladda Soomaaliya ay dafirto doorka dagaalka Maxusliyada iyo dilalka ay u geystaan horjoogayaasha al-shabaab ee gobolada Hiiraan Galgaduud iyo Mudug ee Shabeellada Dhexe horjooga Nuunaale iyo horjooga kale waxa dilay ciidanka Maxusliyada weerar jidgal ah ayay ku sameeyeen cid kale ma dilin mana aha in la xaqiro doorkooda iyaga oo maalin walba dhiigooda u daadinayo difaaca dalka waa nasiib darro weyn ayuu yiri Cali Jeeto Masar Jeeto ayaa sidoo kale xusay in Maxusliyada gobolka Hiiraan ay hayaan hooshii looga baahnaa dawladda Soomaaliyeed balse ay u muuqato in guushii ay gaareen la sii xaqirayo sidoo hadalku dhigay hadalka Cali Jeeto ayaa burinaya warkii wasiirka gaashaandhigga Axmed Macalin Fiqi kaasi oo maalinimadii shalay uu ku sheegay in dawladda Soomaaliya oo kaashanaysa saaxiibada caalamiga ay duqeyn ku dishay Nuur Cabdi Rooble Nuunaale kaasi oo lagu sheegay war laga sii daayay telefishinka dawladda oo lagu soo bandhigay muuqaal la sheegay inuu yahay duqeyn lagu dilayo horjoogaha sare ee ka tirsan kooxda al-shabaab isla wararka la xiriira dagaalada intaan ka bixin ciidamada danab horjoogayaal ayay qaab la yaab ugu laayeen gobolka Shabeellada Hoose xubnihii ugu badnaa ayaana la dilay haddaba guutada danab ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa howlgal qorsheysan oo ay fuliyeen waxa ay ka fuliyeen tuulo la yiraahdo Gaalwaare oo 4 kiiloomitir dhanka bari kaga beegan deegaanka Sabiib iyo Caanole oo hoostaga gobolka Shabeellada Hoose haddaba howlgalkan ayaa lagu qaarijiyay in ka badan 25 ka tirsan maleeshiyadka kooxda al-shabaab iyo 3 sarsare oo horjoogayaal ah sidoo kale ciidamada ayaa gacanta ku dhigay hub fara badan oo ay kooxdu adeegsan jirtay oo ay ka mid yihiin 6 qore oo nooca BKM ka 2 RPG ah iyo 17 AK47 ah waxaana halkaasi lagu burburiyay dhagartii ay abaabuliyeen kooxda sida war dawladda ay baahis lagu yiri sidoo kale ciidamada xoogga deegaanka ayaa markaasi sidoo kale dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay in howlgalkan uu ahaa mid guuleysay oo qorsheysnaa sidii loogu talagalna uu dhacay وهجاج وجود بين وربحنت وجود بس وركنا هديان مانتا نص وقبته أن حادو أو كترسن بعلبان كصومالية أو شيء إنه سن ربين إنه حلبان دبنا نقضه يدو بيش يسوع أي قبل كشبه هذا الدحية يكون أبولي يسوع بيش أبقى قبل كشبه هذا الدحية يكون أبولي صدقاء الشباب حلبان عزمان حادو لو كترسن قلنا شعب كي بعلبان كصومالية يا شيء إن حلبان وكله جاي إسلام مركز إنه وصل هذا كدي بكرسي حلبان وصل رأس الدنيا حادو له ayaa waxa uu sheegay in cid ka amar qaadanaysa xildhibaanka aysan jirin isla markaasina uu rabi lahaa in uu taliye dad ka amar qaato oo wax ka bedel xadoole waxa uu sheegay inuu waayay cid ka amar qaadanaysa xildhibaanka aysan jirin xadoole waxa uu sheegay inaysan jirin cid ka amar qaadanaysa xildhibaanka isla markaasina uu rabi lahaa in uu taliyo oo dad ka amar qaata
oo amarkiisa wax ka bedelo ay jiraan sida uu hadalku dhigay isaga oo shacab badan la hadlayay ayaa uu yiri aniga ha ii dooranina hadda kadib xildhibaan dambe ma rabo xildhibaannimo wax aan madax xanuun ahayn kama helin ayuu yiri Xaadul ayaa sheegay in dhaqaale badan uusan ku haysanin kursiga aniga waxaan rabaa inaan go'aan qaadan karo oo aan wax qaban karo subaxii marka aan sariirteeda ka soo kaco maxaan qabanaa war xildhibaanadu shaqo fiican maaha ayaa uu yiri ama xildhibaannimadu shaqo fiican maaha ayuu yiri sidoo kale xildhibaan Xaadul ayaa sheegay in wasiirada la soo magacaabay xitaa ay yeesaan xildhibaanada oo aysan waqti siinin taasi oo bahdil ku ah sidoo hadalkiisa u dhigay haddaba xildhibaan Xaadul ayaa aad uga hadlay dhibaatooyin al-shabaab ay ku hayaan dadkiisa reer Shabeellada Dhexe isagoo ka hadlayay furinta hore ee gobolka Shabeellada Dhexe waxaana uu baraarujinayay dadka gobolka Shabeellada Dhexe furintaas oo ka hadlayay Xaadul waxa jooga Cali Jeete oo isaguna beesha Abgaal runtu sheegana in meesha ay geelka ku qalanayaan oo ay ku dabaaldegayaan ay tahay meel ay u muuqdaan meel uu joogo horjooge sarsare ama horjoogyaal sarsare oo ka tirsan kooxda al-shabaab oo kuba ku dukade oo gobolka ka soo jeeda uu kamid yahay marka Cali Jeete isaguna Abgaalkii halkaas joogo wuxuu ku baraarujiyeen dagaalka la galo wararkan waa naga tarmad galin